wasaaradda xanaanada xoolaha Puntland iyadoo ka duuleysa ilaalinta caafimaadka xoolaha iyo inaysan bulshada Puntland cunin xoolaha aan caafimaadkooda la hubin ayay waxa ay u saartay koox takhaatiir oo iyagu hubin doona caafimaadka xoolaha la keeno siilada xoolaha ee magaalada Boosaaso kuwaas oo lagu qalo suuqyada waaweyn ee magaalada Boosaaso waxaana ay ka dambeysay kadib markii ay isla qaateen wasaaradda xanaanada xoolaha Puntland dowladda hoose ee magaalada Boosaaso iyo waliba dadka iyagu xoolaha keena siilada magaalada Boosaaso ugu horeyn waxa ka warbixiyay waxyaabaha ay qaban doonaan kooxdan takhaatiirta agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dowladda Puntland Maxamed Cabduqaadir Cismaan waxaan maanta oo ay taariikhdu tahay 17 isla qaadanay degmada Boosaaso maamulkeeda ganacsatada xoolaha aan isla qaadanay in maanta laga bilaabo 17 taariikhdu tahay in neef aan caafimaad qabin aan bulshada laga dhigo horay haddii meena waa laga yimin jiray laakiin qaladaad hadaan dawladda control baarayn qaladaad waa dhici jiray waxaan soo kordhinay team baara neefka isagoo nool markii la qowraco iyo markii uu waray inay hubiyaan nadaafadiisii ka horna caafimaadkiisa hubiyaan ay baaraan neef caafimaad qaba u jaraan aqoonsiga team barayaan hawlgalkaas maanta si rasmi ah oo hawlgalka magaalada Boosaaso aad baan ugu faraxsanahay waana nala qaateen kulankeenii hadeer wuxuu kulan miro dhala waxay noqon doontaa hawlgal aan la iskaga dhawaaqin wuxuu noqon doonaa hawlgal si rasmi ah ballan qaadayna inaan siilaakiisa oo dhan aan u fududeeyo xogayaha dowladda hoose ee Boosaaso Cabdirasaaq Axmed Geeldoon ayaa dhankiisa sheegay in wasaaradda xanaanada xoolaha Puntland iyo dowladda hoose ee Boosaaso ay isla qaateen in la hubiyo xoolaha lagu iibinayo siilada xoolaha ee magaalada Boosaaso sheegay gudoomiyaha dowladda siilada lacagta ku qoondeynay halkan waxa weeye ilaa 10 balbalooyin iyo lagu sameeyo meelaha biyaha yactirka siilada anaga ka dowladda hoose ahaan waxaan isku tashigaas aan isla garanay wasaaradda iyo odayaasha meesha jooga 3500 baan ka dowladda hoose ahaan anana bixinayna lacagtaas yactirka wasaaradda xanaanada xoolaha Puntland ayaa muddooyinkan waday dardargelin hubinta xoolaha soo galaya Puntland si looga hortago dhibaatada ay keeni karto xoolaha aan caafimaadka qabin Ibrahim Maxamuud Yuusuf Puntland TV Boosaaso